waxaan u hambaliyaynayaa marka ugu horeysa gudoomiye Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo aan aad u aqaan oo darajooyinkaad maqashan soo maray kana mid ahay dawladdii federaalka ku meel gaarka ah xukuumaddeeda wasiirka ahay dawladda keentay magaalada Muqdisho kaftan badana meesha ka dhacay laakiin waxaan ka soo qaadayaa hotelka ama resortiga darasidiisu hadiiba waa qaaliyoobeen waan filayo aan naftarkaygu meelahan ku soo dhoowaan islahay marka inay qaaliyoobaan waa ku faraxsanahay mudan aliya marwooyin gudoomiye Cumar sumad ayuu u dhigay dadka Soomaaliyeed xildhibaan alqaali waxay tiri waxaan inta qaadanay dibadda geemayne waxaan ka dhisaynaa dalka aniga kaftankaygu waa badan yahay caawa dibadaha dhalinyarada nooga timid ee gabdhaha iyo wiilasha ah ee bidhaanta xukunka iyo dawladnimada soo raacay waan ognahay markaan runta isu sheegnay laba nooc waaye nooc shaqo soo doontay xilal soo doontay xoolo soo doontay oo haddii ay helaanna qaar dibadda u qaadayaan in yaruna ay dalka gudihiisa ku maalgelinayso ma raba inaan ku fogaado waa laydinla kaftamaad ee dadkiina ka yimid dibadaha waxaa ugu soo hormara dalalka adduunka ama dawlad kasta marka xil qofi qabto dadka ugu horeeya ku soo yaacay ku wareegsamo maaha kuwa ugu fiican dadka hogaamiyahaas waxaa laga rabaa ama xil kasta qof uu hayo inuu raadsado dadka wax tari kara ee ku soo yaacay oo una u malayn kuwa dadka ugu fiican waxaa laydinku xantaa reer diaspora inta badan dadka yimid gaar ahaan wiilasha lagu xantaa dad nolosha ka dhacay waayo oo gabdhaha iyo xaasaska ilmaha ka soo tegay haddayna sidaas ahayn dalka waxay ka shaqaystaan ha geliyaan haddii waxa lagu xamanayo kuwa nolosha ka dhaca soo hormara ay dhab idinku noqoto waa markaad waxaad dalka ka shaqaystaan dibadda u qaadaana iska ogaada iska dhaqa arrintaas intaas kadib waxaan isleeyahay haddii gudoomiye Cumar waa ku dhiiraday inuu dhismahan quruxda badan ka sameeyo magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Madiina laakiin kuma dhiiradeen haddawna qiimaynin dadaalkii ka galay in dawlad Soomaaliyeed ay dhalato oo dalka gacanta ku dhigto waxaan soo wada shaqeynaa asaga iyo akhyaar badan oo ay horteyda ka muuqatay qaar maqanba iyadoo qofkii wasiiran u magacaabay taga uu leeyahay waa ku baryahay magacaabin oo laga cabsanayo in wasiir la noqdo wallahi ma kaftamayo qaar baa odayaashoodii iyo akhyaartoodii ii keenay oo iga bariyay inaan wiilkooda wasiir u magacaabin haddii kale waa dhimanaya ilaah baa wax dilay ma ogtahay intii u bareertay xilalka qaadatay dawladnimada keento uu koob ka yahay marka wixii uu ka soo maray dawladda og yahay marka inaan gadaal loo noqon inaan u cad gudoomiye Cumar sidaasay tahay haddana naftirkiisu ma bareereen haddaan amni jirin amni ayaa keena caawa inaan halkeer ku daamaashaadno annagoo tiradan dhan oo madax qaran iyo madax gobol iyo nooc kastoo bulshada ka kooban waad garan kartaan kulligiin xabad bastoolad hadday dhacdo oo kala cararayna waa gurgurina qaaranka waa ka cararay inayna dhicin marka amniga sugan iyo saraakiisha ciidamada iyo laamaha amniga ee ku dadaalaya horta aan u hambaliyana una mahad celino iyaguna ma jireen haddaan dawladi jirin ogaada dawlad marka qiimaha ay leedahay ha la arko ha lagu mintido anigu weligay dawladahan aan taageeraho ilaaliyaa xukunka in lagu tartamee la kala rito oo la kala qaato waa caadi laakiin caawa waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo aan ka mid ah cashar ha u noqoto war haddii la tartamo ee la kala adkaado qofkii adkaadaha lala shaqeeyo
colaadna ma aha tartanku colaad ma ahan in la loolamo colaad ma ahan dagaal ma ahan waa xirfad iyo baratan waa la yeelaa waa la tartamaa waa la dagaalamaa siyaasiyan waana la kala qaataa laakiin qofkii xilka qaata in garabka laga gala rabaa lala shaqeeyo sababtoo ah mid kastoo ka dambeeya wuxuu rabaa in lala shaqeeyo waxaan ku dardaarmayaa marka dawladda inaan dhowrno ilaalino dawlad tegtugleyda qaar ka jooga aan arkaye waa la dhaliili karaa wax waa laga sheegi karaa laakiin lama caayo lamana inkaaro ee waxaa la isku dayaa in lala taliyo taladaa inay qaado ilaahay looga baryaa hadday qaado weysana waxaa loo tiriyaa maalmaha iyo bilaha iyo sanadada qiimaha aad noo leedahay shakhsi ahaan qiimaha aad noo leedahay muxuu ahay bulsho ahaan caawa waxaa halka yimid oo wax ka daahfuray guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho waa kaftamaynay waa isla fadhinay waxaan ku kaftamaynay in bilicdii magaalada qayb ka mid ah oo qaatay hotelkan wuxuu igu daray canshuurtina waa ay kordhaysay oo canshuura laga qaadaya soo guul maahan waxaan ku darnay oo meeshana laga sheegay in shaqo abuur uu yahay dad badan oo ka shaqaysanayaan oo daba badan oo qoysas Soomaaliyeed ka shidmayaan waa dhaqaale iyaduna sidaas darteed in noocyadan oo badan la sameeyo amnigay qayb ka qaadanaysaa marka ummadda shaqo badan ay hesho waxaan marka isula dardaarmaynaa inaan xoogga saarno noocyadan inaan camirno laba arrimoodna waxaan rabaa inaan sheego makhaayad ama restaurant waxa loo yaqaanaa meel wax laga cuno waxna laga cabo hotelna waxa loo yaqaanaa meel wax laga cuno waxna laga cabo lana jiifto adeega yaryar oo kalena leh laakiin magaca u fiirsada Medina Beach Resort waxa la yiraahdaa hotelka wax dhaafsan oo adeega ka fara badan ay jiraan iyaga noo sheegi doona waxa resort loogu bixiyay laakiin waxaan aaminsanahay waxa ka heer sareeyo hotel inuu yahay waxa kamid ah xeebtan lagu dabaalan karo waxa laga yaabaa golf in laga fikirayo adeega aad u fara badan oo ku dhex yaala dhismooyinkaana jiri kara oo hotelka balaaran anigu waxaan isha ku dhiftay parkinga baabuurta la dhiganayo Soomaalidu parkinga ma taqaan mana dhaafato ciriiri inta ka dhigtaan baabuurta meel la dhigta la waaya hotelada macnaha loo Muqdisho ku yaala kulli waxa looga cararayaa parking laan meelad gaariga dhigata male marka parkinga uu leeyahay waxay kamid tahay waxa resort loogu bixiyo hotel looga duway waqti damban joognaa kulligiin waa idin salaamayaa hambalyaan idin leeyahay dawladnimada hala ilaasho waa lagu tartamayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.